waxaan moodayay inaan ka jawaabay mar ninkii wasiirka ahaa ee xisbiga musharax baan waxa yidhi cali waran cadde aan ku wareejiyey mar la igu wareystay airportka inaan jawaab ka bixiyey sidoo ku burburayna apology aan ka bixiyo maadaama ninkaa ku wareejiyey ninkaasina waxaan kari waayey inay khalad ahayd baan halkaa ku sheegay waayo isaga yidhi musharax baan ahay xisbi ahaan waan ku wareejinay nasiib darro tartankii buu ka qayb gali waayay halkaas xisbigu ku burburay maalinta aanu jawaabayana waxay ahayd maalin uu isagu yidhi xisbiga udub jeebkaygu ku jiraa uu baaba'ay dibna ma soo noqonayo maalintaasaan anigu jawaab ka bixiyey aan sheegay apologize nin aan meesha istaahilin inaan keenay marka xisbiga udub unfortunately nasiib darro saas ku baaba'ay laakiin xisbi inuu baabaa loo baahnaa maahin si kalaan ku weydiinaya adigu bulshadu intaa dee mar hore aad u sheegtay mas-uuliyiin ka tirsan xisbigaaga oo xoogayihii guud iyo madaxweyne ku-xigeenka oo dhowaan madaxweyne ku-xigeenkaagii hore aan idhaahde oo dhowaan warbaahinta la hadlay madaxweyne waxa ay sheegeen khilaaf adiga iyo xooghayuhu intaad dibadda aad tagteen howlihii halkan ka socda aad tidhahdeen annaga la-aantii waxba ma soconayaan taas miyayna ka duwanin intaad shaksiga ku sheegayso حوك مجران حوكيو ما بتشوفين عليه بالحوار كحوك هو رسكون ميت حسبوا أنفرجنا للسوق كوبا باي أنا بس كقاتي مسؤوليتي مركا إيد كله وحلو وضوضا ماشي ما بتحلو وأي بحاجة قوان كان قاتي با ها قوان عن مركا كوابونين رنتي إلان قوان كدوان قاتي حيد إلان المشرح بالسمين باي حيد الحسب دور شغل بس كريه adigoo taagan oo adigi dama anigu ama ama iska daayo laakiin in tartanka ilaa uu ka galo inaan musharax la sameyn baahid khalad ka dhacay musharax baan nin yiri waan sharaxaya ayaan ogolaanay ninkiina isaga ka baxay xaalad oo tartankii ka qayb gali waayay madaxweyne waxa la yiraahdaa doorashadii ugu horeysay ee golo baarlamaan ee Soomaaliland yeelato bulshada iyo daadu madaxweyne qaran baad markaa ahayd laakiinse deegaanka la yiraahdo madaxweyne Riyaal uu ka soo jeedaa tiyoy aad ogeyd in madaxweyne cigaal ay kula gorgortamayeen 18 xildhibaan ayay noqon doonaan golaha baarlamaanka ka sugayna inay baarlamaanka fadhiistaan adigoo deegaanka ka soo jeeda ayaa 13 xildhibaan doorashadii ku qabtay ma isleedahay adiga berigii dadka u qaaday 13 xildhibaan ka madaxweyne Riyaal ahaa horta 18 gorgortano meesha yaalay ma jirin waxaasi ma jirin laakiin doorashada aan qabanayni doorashadu ma ahay baarlamaankii u horeeyay kaliya doorashada aan qabanay doorasho oo dhan ana qabtay doorashadii ugu horeysay ee golaha deegaanka ana qabtay tii madaxtooyada aan qabtay tii baarlamaanka aan qabtay ta baarlamaanku waxay ahayd doorasho experimental oo waqti laga gudbayo محكمة الدستورية كان مركي قرياشو 2/3 majority سكراعين وأنا كاسنا وحا one time use إن لو قالوا دور شرا بيجي كده بيانا إن ديوان جرين دتك الله سميه سيد دتكو من بفوت كي سووا حكوه اللي هو كهرو مركا قوان كماش عندك لي مد تجارة ويدتكو نلا وقالين بيحيد إسلام مركانا إن حبكي لقى بحلها قوان كي قوان محكمة الدستورية اللي قال بيحيد مدحوني ديمقراطية iyo qabyaalada marka doorashooyin laga hadlayo dunidu waxa taqaanaa laba qaybood oo isqaban kari Soomaaliland laakiin hadda waxa muday dimuqraadiyadii iyo soo galayaan qabyaaladii sidee baa la isku waafajin karayaa laakiin ma ku soconaysa Soomaaliland dimuqraadiyadii iyo qabiilkiisu xisbinimada in lagu socdo iyo bay dimuqraadiyadii ku hirgalaysaa doorashooyinkii ugu horeeyayna nidaam annagu aan qabanay nidaam axsaab baa lagu tartamayay laakiin waxaad moodaa intii dambe inuu nidaamkii axsaabta aad looga leexday oo baashii qabiilkii ka soo dhaxbaxay waayo baartiyada waxaa loo sameeyay marka horeba inaan qabiilka kaga dabaalano oo waxay ahayd shuruudaha waxa ku jiray sharcigii lagu doorashooyinka axsaabta lagu qiimeynayay ugu yaraan 4 gobol inuu qofku vote ka helo xisbigu saw xisbigu noqdo isla markaasna inay regional reer gaar ah degan yihiin inuu xisbiga soo bixi karin marka waxa soo dhan safeguard baan anagu sameynay taxadir baan sameynay weli taas way shaqeysaa laakiin waxaad moodaa ololihii lagu ololeeyay xisbiga inuu muddadii dambe oo meesha ka baxad muddo
way madaxweyne si kale xisbigii ka guuleystay xisbiyo badan buu furay ma qabtay adigu haddii aad xukun kusoo noqon lahayd ama siba ra'yi ma qabtay in urur la furo saddexdii xisbiinta la yiraahdo dad xisbiyo kale laga garfuraya sharcigii meesha yaalay taa ma sheegin way laakiin cidda timaadii haddana iyadoo sharciga adeegsanaysa waxyaabo isbedel way samayn karaan laakiin ma ahayn one time bay ahayd in baartiyada la sameeyo saddexda baartiya samaysbay in la iska bedbedelay ahayd oo kolba dadka hogaaminayay ay isbedelaan in xisbiyo kale la furo kumay jirin qorshaha aanu samaysanay xisaabta ma isleedahay wax wanaagsan bahayd in xisbiyo la furo mase isleedahay wax xun oo dalka kusoo kordhay كوسو سيبادي سوق بيالله دبوا حسيك يعني حزبية بدنا الأفراد هذه اللي لا مركز تبع الأفراد يمكن غيره يبقى غير كسبين حزب فرتور ربع صوب ترى إنه كبر كهرباء سد حزب هلا ترتوى سد حزب بحدون ناشونال بارك هالنقطان لويلي سي أنا بعيش الدب لو نقطان قبيالة ده وغير كسبوا ورونا أنا حزبية وفرنايا تصيحن madaxweyne waxa jirtay dhacday markaad madaxweyne ahayd oo doorasho wali loo diyaar garoobay deegaanka ceel bardaale habeenkaadu madaxweynaha markaad maqashay dhacdadaas say kula muuqatay dareenkaaga ka war dhacdo kastoo dhacda oo naxdin lah madaxweynuhu waa qofka koowaad ay khusayso ee ka naxaya wixii gurbadan samayn karayna waa samaynay laakiin unfortunately wixii dhacaya cidnaba joojin karayso way madaxweyne markaad madaxweynaha waxa la yiraahdaa dawladii udub iyo miidiyo isku wanaagsaneen ama isku fiicneen baan niraahno maxaa idin kala hor taagnaa ma miidiyaha yaraa mise idinka miidiyaha si kale uga baqay sharciga miidiyaha baan ka sameynay kamana baqayn ninka ugu waraysa badnaa ay waraysan jireen ee oo ugu galaa mar kastoo nimaado inaan u waramo aanu ahaa dabadii la waraysan jiray cidda dabadii la waraysan jiray way siyaasadda haddii madaxweynahan ku sii socono oo kali waxaan ku jirnaa un anti waxaan tagaynaa waqtigii Soomaaliland aad joogtay adigu xukunka haysay madaxweyne waqtigii aad xukunka joogtay mucaarad xooggan baa ka hor yimid mucaaradkaasi ka waran saameyntii mucaaradada ay kugu hayeen siday kula ahayd ama sidoo xalin jirtay horta mucaaradku aniga waxa igu mucaarad ahaa xisbiyada mucaaradka dadku mucaarad igu ahayn way dadku day weer waxaan qabteen oo way arkayeen halkaan u socdana way arkayeen Soomaaliland doorashooyinka ka sameeyay waxay suura galiyeen inay Soomaaliland ku iibsanto markii labada doorashaha hore aan qabtay baarlamaanka Ingiriiska conservative iyo laborka iyo ku hambalyeelaya dimuqraadiyadda aan sameynay wadankeena yimaadeen 13 xildhibaan oo ka socda anigana waxa lagu martaqaaday Ingiriiska waxaan ka hadlay baarlamaanka Ingiriiska waxay keentay sawir Soomaaliland inay awal waxa la noola jiro waan ka nabad fiicanay koonfur laakiin inay Soomaaliland wax shaqeynayo waxyaabo cajaa'ib ah oo success story sameynaya ayay noqotay ilaa baarlamaanka Ingiriiska ka hadlay meelo badan baan tagay maamulka bariga oo dhan ana ku fidiyay marka dadku way arkayeen inaan wax qabanayo dadku laakiin baartiyada ayaa aniga mucaarad ku ahaa anu dadku mucaarad ugu yahay balaamsan madaxweyne adaa ku jooga haddii ayna dadku mucaarad kugu haynin ka soo horjeedin miyay ku codeeyeen markii doorashada ay madaxweyne way codeeyeen dadka in badan bay codeysay dad badan in badan bay codeysay in doorashada laga helo waa wax dhici kara ma ahayn always hadduu dadka in badan ku taageersan tahay inaad markasta doorashada ku talagelin oo laga heli karaa laakiin dadku markasta codka uga weysiinaya madaxweyne waxaa jirtay inaad midowga Afrika iyo dawladda Mareykanka xiriir aad u dhow la yeelatay gabadhii Jandaya Fraser ay wadanka timid oo waa head state dhowr iyo kontonka dal Afrika oo qaabilsanayd Mareykanka halkan aad keentay dabada wufuudi lamid ah oo midowga Afrika iyo markaa madaxweynaha aad wadankan ka soo hayd ma ku aragtay laakiin siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland say kula muuqato horta nimba sidoo uu shaqeynayo waqtigiisa iyo sidoo isagu u shaqeynayo taala Mareykanku aniga State Department kale ugu martaqaaday intiinayadu yiman official visit waa ku tagay Mareykan State Department
they make dinner discussion baan ka galnay waxyaabo badan oo bilateral agreement inay maraykanku noo sameeyay marka dambe anaa ku martiqaaday in halka timaado saasay ku timid laakiin waxay dadaalkayga bayd xukuumadda iyada dadaalkayga udub markaan joognay albaab kastaan garaacayni African Union waan makaanay halkan 2004 baan Alfa Umar Kunaari kula kulmay waxaan u sheegay dad Afrikaana oo ayna cidna ictiraafin oo sameeyo hubka dhigis dawladnimo iyo dimuqraadiyad baan nahay dad Afrikaano waxa sameeyay inaad marxaati ka kacdo oo visit ku timaado cid soo dirta ayaa ka codsanaya waan 2005 bay yimaadeen goboladayna in badan bay yeeshaan gobollo kamid ah ka bacdi they made a report to the African Union bay report sameeyeen oo document ka soo baxay inaad meelaha ku aragteen mooyaan waxayna u sheegeen maaragtaanay Somaliland inay u qalanto wadan jira ay tahay sirt Libya shantii May 2005 ayay dokumentiga gudbiyeen African Union oo loo qaybiyay ma garanaysaa oo shirkii ay ku lahaayeen sirt oo Libya ahay marka dokumentiga African Union laga hayo ee sheegaya Somaliland inay wax success story samaysay oo loo baahiyay in dib loo eego taasoo ku beekeen meel badan oo kala dalka tagnay Afrika waxa tagay Kenya tagay madaxweynaha Moi Kibaki baan la kulmay Patrick waxa la kulmay madaxweynaha Tanzania waxa la kulmay Paul Kagame Rwanda meel badan baan tourist ku maray waxa soo dhan waxay ahayd waxa wadnay annagu maaragtay mucaaradka aniga ay haystaa macna badan aniga ay sameeyeen mucaaradku natural baa inuu iska jiro laakiin aan waxa ka shaqeynayay muddada aan joogo wixii aan qaban karay inaan qabto dadaalka badan ee sameysay Somaliland اعتراف ممكن maxay hayn caqabadaha kala ku wuxuu keenay aqoonsi buu keenay waxa weeyaan de facto recognition buu keenay inaan wax jiranahay buu keenay dadaalka sameeyay because before that inaan jirno xitaa recordka adduunka kuma jirin waxa la yiraahdaa de jure recognition de facto recognition ma la yiraahdaa aqoonsiga tooska United Nations member aad ka noqoto kama nugaadin laakiin de facto recognition inaan dal jiranahay oo xiriir leynala sameeyo oo leynala macaamilo oo deeq leyna siiyo waxa soo dhan keenay dadaalkan sameeyay marka waxaad u aragtaa in dadaalkii xisbigii iyo dawladda ay hogaaminaysaa waa mid guul ah yes way madaxweyne Sanogiya waxa jirta wada hadallo Somaliland iyo Soomaaliya adiguna ma qaban jirin wada hadallo Somaliland iyo Soomaaliya Somaliland iyo Soomaaliya horta wada hadalladooda sidaad ugu aragtaa madaxweyne horta anigu madaxweyne ku xigeen waan ahaa madaxweyne la shaqeynayaan oo madaxweyne ku xigeen annaka waxba meel loo yaalay Soomaaliya markii dawlad koonfur ay soo dhistaan inaan wada hadallo ajendahay waxa laakiin qoladii laga dambeysay bedeshay qoladii laga dambeysay bedeshay halka ay marayso dee warbad waxaysan haday meel dhashay iyo hadayna daliil idinkaaba xogogaal ah oo dalka u jooga marka wal hadli karo Soomaaliya in la hadlo anagu waa naamsanayn laakiin waxaan ku kala duwanayn goorma la hadlaya adigoo madaxweyne abaad waqtiga joojisayna Soomaaliya la hadda waxa loo haawanayaa la isku diyaarinaya wada hadallo Soomaaliya iyo Somaliland dhaxmar dariiqii ictiraafka ma yahay wada hadalladaas mise madaxweyne hore Somaliland adigoo daayir yaala ma ka qayb galaysaa oo miisma la soo fursanaysa Soomaaliya anigu de xilma hayo cid baa xilka haysa ergeynimo iyo odaynimo hadii ma anigu ergey meesha ma ahayn waa dawlad baa meesha jirta dawlad baa barnaamij leh dawlad baa waxaan ka shaqeynaysaa waa hawl iyo ka taala اعترافك طريق lagu helay miyay اعترافك lagu helo Soomaaliya la hadlayna de lagu helay ma اعترافku inaad albaabka si garaacda member stateska adduunka oo dhan waa inaad lobby samaysaa intaad waqtiga rabtaa ku qaadato اعترافku wax meel iska yaalo soo qaaday markiiba ma ahin sidii dad badan oo dhulkeena ku nool ayuu اعترافku wax intuu la dhoofo meel laga soo qaadayo that doesn't exist laakiin waxay u baahan tahay inaad wado aad isiibiso yani aad ku qanciso adduunka wadamo badan inaad ku qanciso in maaragtaanay lagu aqoonsado ilaa aakhirka aad hesho recognition
laakiin tani waa Soomaaliya wada hadlaynaa tan Soomaaliya waxa loo marka loo wada hadlo waxa lagu wada hadlayo wax ka soo baxay ku xirtay way madaxweyne ma aaminsan tahay waqtigii Soomaaliya la hadli lahaa in la joogo adigu mar haddii go'aan ka qaatay dee hal wado bal wixii ka soo baxana hal arko waxaad ka muujinaysay in hadalkaagii hore ku jirtay maxaa ka soo baxay idinku wada arkaysaan waxa ku jirtay hadalkaagii hore maxaa ka soo baxay wada hadaladii Soomaaliya lala furay mayna kuwana ku la simid noqonay marka saa loo eegaano taasi ay weydiiyay adaa guriga ahaa wadanka uu joogay wixii ka soo baxay adaa weydiinaya ani maxaa weydiin maxaa ka soo baxay dhalmay habsama maxaa ka soo baxay adiga ay weydiin adiga maxaa ka soo baxay asawiriyahan meesha adaa dhex taagnaa oo shaqadana kula jiray qolyaha la weydiin jiray maxaa ka soo baxay wali way socdaan way socdaan okay way socdaan ilaa hadda asugna waxa ka soo baxay way la taswiid geeska Afrika ayaynu tagnaa madaxweyne maxaa geeska Afrika bal ka waran markaad 2010 madaxweyne ahayd wixii ka horeeyay iyo training gaaraysa inay taan maraynaya abada 9 sano inaad xilkii ka sii maqan tahay maxaad arkaysaa isbedelay bal ka sheekay madaxdii hore geeska Afrika isbedel ku socda Soomaaliland loo isbedelo kii saddexaad baa socda way Ethiopia loo isbedelay Kenya loo isbedelay isbedel ku socda wuxuna siyaasadda iyo wadamadu isbedelku wax meel stagnant oo meel iska taagan ma ahayn laakiin waxa uu loo baahay isbedel ka socda in la maaragtay saan qaado ayuu baa loo baahay isbedel ka socda wadamada jaarka nahay kulliba in xiriir dhow la yeesho sidii wax isku bedelayaan adiguna inaan adoo danahaaga fulinaya masaalaxeeda ka dhaxeeya sidii aad wada socon lahaydeen baa la gudboon kulba xukuumadda joogta madaxweyne dadka qaar baa qaba Somaliland waqtigii 2010 wixii ka horeeyay maqaamkii geeska Afrika ay ka taagneed iyo sida dawladda Ethiopia ula dhaqmaysay dawladaha jaarku si ula dhaqmayeen waxoogaaba hoos u dhac jira sababahana waxa keenaya dadka aaminsan dawladda Soomaaliya oo codsatay in dalka Soomaaliya uu leeyahay iyadoo Somaliland sheegtay in Soomaaliya ka go'day dawladda oo Somali Republic Federal Government la Soomaalida dawladda oo la yiraahdo Somali Federalism ama Soomaalida iyo goboladooda oo dawladda oo Muqdisho fadhida guud ahaan ay dunida la hadli karto nidaamka cusub ee Ethiopia yimidayna dadku waxay yiraahdaan wuxuu tixgelinayaa dawladnimada weyn ee koonfurta ka jirta balarka ka waran madaxweyne horta awalba Soomaaliya inay dawlad tahay baa loo aqoonsanaa markaan joogayba wax imanku yimid maahin waa laga yaabaa in dadaalkii iyo waxtarkii la siin jiray la kordhiyay laakiin inay dawlad Soomaaliya tahay baa iyaga loo aqoonsanaa innaguna waxaan ku dhawaaqnay inaan anagu madaxweynaha la soo noqono dadaalkeygii ma wadnay ilaa imikana in la wadun baa loo baahayay taasi inay kaa joojiso oo tiraa dawlad baa loo aqoonsado federaale adigu iska fadhiiso dee inoma taalo inaan inagu waxayna raadsanno baa loo baahayay awalba waa la aqoonsanaa dawlad Soomaaliya ahayd UN way joogeen shalay markaan lagu joogay antudhayna way joogaan wax badan oo isbedel oo aynkaas ku jira ma jiro Baysadii Somaliland dadka qaar sida ay qabaan in dhaqdhaqaaqa geeska Afrika waxoogaa xayndaaba la geliyo sidii hore loogu furfurnayn inuu ku muuqdo madaxweyne horta anigu ma aaminsan waxay ku xiran tahay hadba dadaalka aan wada nimaadno waxaan beriyaha qaarkood ku maamaahi jiray markaan anigu joogay albaab xidhan haddaad timaado albaabka haddaad garaacdo iyuunbaad ogaanaysaa inuu meeshu xidhan tahoona lagaa furan iyo in lagaa furayo anigu waxaan odhan jiray albaab kasta waa inaan garaacnaa si aan u ogaano bal in laynaga furi karo albaabkan oo waxa ku jira aan ogaan karno iyo cidaan nala hadalna inay joogto iyo haddaan meelba garaaci weyno meel tegi weyno marka taasi waxa weeyaan innakii baa ka gaabinayna marka waxaan qabaa Somaliland waxay u baahan tahay dadaalkii waqtigaas soo bilaabmay jiray momentumkii in la sii wado oo aan laga caajisin oo aan lagu niyad jabin dee sheekooyin kale markaad ii sheegaysaad leedahay Soomaaliya dawlad federaal laga dhigo walyahana aniga bay ma ixtiraafin Ethiopia beriga waa xiriir fiican waa lahayn ninkii markaa joogay Mala Salaawi laakiin anything short of recognition buu yaqoolay waxaan aqoonsi ka sokeeyo dhan buu yaqoolaa taasna waxa lagu kasbado xiriirka aan sameeyay waxa
waxaa loo baahayay kulba cidda joogtina inay sii wado oo jaarkaaga mahmahyaga waxa ku jira jaarkaaga ma dooran kartid laakiin waxaad dooran kartaa sidaad jaarkaaga ula noolaanayso marka jaarkaaga inaad ula noolaato sida ugu fiican si aad danahaaga danahoogiiyo danihiina masaalix baa idinka dhexeeyo nabadiina way isa saamaysaa sidaad wax u kala iibsanaysaanna waa inay dee adiguna dadaalkaaga dhinacaaga aad ka wadaa marka waxa weeyaan dadaalkeenu bay ku xidhan tahay albaab xidhani ma jiro albaab laynagu soo xidho layidhi albaabkaa kama soo gelaysa ma jiro marka waa in dadaalkii un la wadaa baan anigu lahay markaad madaxweyne waxaad magacawday degmooyin iyo gobollo tiro badan markaa dhaqaale iyo bajad iyo axadayn iyo meel ay ku joogaan iyo lakiinse magacyaad u bixisa ma is leedahay kuwaasaa keenay gobolaysiga iyo qabyaalada marka reer kastaba deegaan oo yeeshu deegaan doona qabiilkuma silaysnin kuwaasi dad isku jirjiray ahayn waxaana loo in maamulka lasii ballaariyo oo lasii fidiya bayna ahayd wax qabiila keeneen kuwaas ma jiro madaxweyne sidoo kale dadka qaar la wada degan yahay dhulkaan magacaabay dad baa wada degan dowlad baa ka daba dhalatay madaxweyne sida la og yahayo mudane madaxweyne axmed maxamed maxamuud siiraanya uu hogaaminayo oo dowladdaasi sibay u dhisnayd golaheeda wasiiradu sidoo arkiisa golaha wasiiradu ee dowladdaasi dhisnayd maadaama golo wasiire adigu muddo ka hor aad ka tagtay adoo golo wasiire ay jiraan wallaahi anigu dee taa inaan faalo ka bixiyo xaq baa weliyo ninba siduu xukuumaddiisa u dhisayo isagaa madax bannaan taasi jawaab aniga igama baahan okay si kalaan ku weydiinaya mudane madaxweyne ma is leedahay waqtigii aad madaxweyne ahayd deegaanada gobolada galbeedka la idhaha madaxweynuhu ka soo jeedaa waxqabadka sida laga sheego madaxda haatan iyo kuwii horeba la yidhaahdo ay deegaanadooda hay-adaha iyo waxyaabaha kale ee haday tahay dowladnimada aada looga dhex arko adigu kamaad qaban ma is leedahay wax badan baan ka qabtay wax badan waxa iskuulla laga dhisay iyo MCH laga dhisay iyo adeega caafimaadka institutions oo dhan waxaasoo dhan baan ka hirgelinay waddanka oo dhan not gobol gaar ah kuma dhisayna waddanka oo dhan baan ka hirgelinay si kalaan ku weydiinayaa mudane madaxweyne oo ah madaxweyne hore jamhuuriyadda somaliland reelaado waxaad maalintaad xilka ka tegaysay tiri dalmida iyo dadmida baan kugu dhibay somaliland waad arkaysaa haatan cabashada beelaha ka taagan iyo sida dalka qaylada ka soo yeedhaysa dalkii iyo dadkii midkiiyada wareejisay weli ma arkaysaa iyagoo wada jooga dalkii iyo dadkiiba way jiraan laakiin waxyaabo dhacdooyina baa jira dhacdooyinku in xal loo raadiyo loo baahan yahay dad iyo dad meesha ku kala tagay ma jiraan way jiraan intiiba laakiin dhacdooyin badan oo soo biiray ayaa jira kuwaana waxaa loo baahan yahay in xal loo raadiyo jabhadaa ka dilaacay dalka jabhaddii suldaan wabar ugu horeysay oo ahaa suldaankaagii jabhad kale iyadna hadda muuse bixi la kowsatay oo gobolka sane ka dilaacday kuwo kaleo cusub baa gobolka awda lagu sheegayaa maxaa idinka jabhaduhu u bilaabmi laayeen markaad joogteen wadanka maxaad is leedahay waad kaga duwantihiin madaxda haatan jabhaduhu ku bilaabmayeen madaxweyne ma odhan karaa dee qolada waanu ka nasiib badnayn ma odhan karaa midda labaad anigu waxa jabhada ah oo micno badan samaynayo oo jiraay ma jiraan ashkhaas wey masalan wabar baad ka hadasho waa shaksi nin kale oo xagga bariga baad ka hadasho waa shaksi wax jabhadaa ma ahayn laakiin in xal uun loo raadiyo ayuu baahan yahay waxyaaba solution u baahan wey ma is leedahay waxa ay raggaasi ku andacoonayaan madaxweyne haddii dowladdiisa iraanya uu ka tirsanayo suldaan wabar oo kaloo sheegay inaanan dalka wuxuu uga baxay tahay cadaalad darra uu arkayo markaad adu xukun ka tagtay muxuu arki waayey marka dadka kale isaga la mid ahaa joogay muxuu arki waayeen wuxuu isagu arkayo caaroo kale hadda wuxuu leeyahay tii ugu caaroo kale isaguna si taageer buu sheegay midaan kuu sheego nin kastoo meel u booda oo yidhaa waxbaan samaynaya marmarsiyuu samaystaa marmarsiyuhuna wax qiil noqon kara ma ahin dalka waa la wada joogaa wax wabar lagu sameeyo anigu ogaana ma jiro caare waa laga yaabaa nin askari ahaa inuu khilaaf yaroo meel gudaha unoo ka baxay
soo baad garan iyo reera beel islaayi iyo waxaykaas marka anigu uma arko significance badan inay leeyihiin in xal un loo raadiyo dadka noocaasa in xal loo raadiyo baa meesha ku jira madaxweynaha haatan talada jooga mucaaradadii kugu adkayd waxaa la yidhahdaa raggii samayn jiray buu ka mid ahaa adiguna hadda waad la shaqaysaayo madalo badanuu joogo adoo ka muuqda sida qalinjabintii camuud oo aad wada socotaan baa la arkayay maxaa madaxweyne aad arkaysaa isbedelay horta mucaarid isagoo keliya maaha dee ilaa siiraayo mucaarid bay u ahaayeen runta markaan kuu sheego anigu mayhii iyaku markaa xil may hayneen niman mucaarid ahoo dagaalamay ahaayeen anigu xilkii waan ka degay madaxweyne waan soo maray grievances iyo dagaal ahoo aan ku jira ay ma jiro qarankan madaxweyne ka ah anigu sharaftii madaxweynenimo ayaan haddaan isaag taagana aan ku agtaagnaho inay meeshan waxay noo noqoto ayaan jeclay lama shaqeeyo shaqa aan la qabtaa ay ma jiro laakiin dee occasions waan isugu nimaadnaa iyo kulan waanu samaynaa aynan iyaku waqtigii anigu aan joogay aynay samayn jirin laakiin anigu waxba nin wax u ceel qabo ama u ooman madaxtinimo ma yihin nin meeshaa ka gudbanahay marka haddii la yimaado lagu sharifo madaxweyne nagala qayb galayna madaxweyne nimanka la qayb galaya sharaftaydi anoo wato baan ka qayb galaya anigu markaa anigu statuskaygu wax weeyaan nin madaxweyne qaranka ahaa baan nin wax danta qaranka meel isugu yimaado haddii laygu sharifo nin maaragtaanay odhanaya ma imanayo qoladaasaan macaalis ku ahayn anigu ma yihi hadday iyaku waqtigaa caynka ahaayeen because markaa iyaku dee xilna may hayn niman uun dagaal kusoo jira ayaa ahayn waanu kala duwanahay yani waqti marxaladan anigu imika ku jiriyo tay markaa ku jireen laba kala duwan bay ahayn dad baa qaba madaxweyne mar labaad inaad u hanqal taagayso inaad siyaasadda ku soo noqoto oo dadaal iyo dhaqdhaqaaq aad samaynayso ah dee maadaama aad siyaasi iyo madaxweyne hore ahayd arrinkaa maxaa ka jira waxba kama jiraan way anigu lagamana hayo waa ku soo noqonayaan amaan odhan dee waa sheekooyin malaha dadku una ay sameeyeen baan u malaynaya laakiin anigu waxaan idhi xisbiga udub wuu soo noqon doonaa xisbiga udub ciddii rabtay madaxa ka noqoto laakiin national party buu ahaa xisbi qaran buu ahaa oo aanan ku salaysnayn beel iyo reer midna aan ku suntanayn laakiin dadka reer somaliland oo dhan ay ka muuqdaan dadyo badan oo maanta ale xisbigaa soo noqdayna way jiraan markaa taasi casaa marka xisbiyada la furo inaan siduu usoo noqon lahaa gacan ka geysto oo laga yaaba hadduu ilaha yidhahdo laakiin anigu doorasho imika aan xiise u qabaay ma jiro waqtigayga waan soo qaatay enaf isnaf baan lehay intaan xil hayn lahawanay markaad leedahay inuu soo noqdo inaan ka qayb qaato markaad leedahay inuu soo noqdo xisbigii udub inaan ka qayb qaato ma loo macnaysan karaa xisbigii udub waan soo celinaya xisbiga udub inuu soo noqdaan aaminsanahan ku yiri xisbi ahaan inuu soo noqdo oo saaxadda ku soo noqdo ciddii madax ka noqonaysa baa ka noqoto laakiinse inuu soo noqdo baad ku xisbiga taasaan aaminsanahay madaxweyne maxaad madaxweynaha haatan dalka jooga markaad arkaysa dalka waxaa kala duwan ee kasoo baxaya ee tabashooyin adeeg ku aadan maxaad madaxweynaha odhan lahay madaxweynaha waxaan odhanaya isagaan ka odhanaya miidiyaha ka odhan maayo horeyna waan u sheegay markuu siiraayo joogay ma yihi anigu nin mucaarid aho imika samaysanaya qiilal badan iyo dadka iska iibinaya ma yihi laakiin talada madaxweynaha intoon u tago gidaarigama xige ayaa wixii tale aan aaminsanahay aan u sheegi doonaa hadduu ilaha yidhahdo way madaxweyne dadka deegaanka adigu dhalashahaanaad ka soo jeeday ee gobolada galbeedku waxay dhahdaan somaliland tabasho fara badan oo ilaa madaxweyne siiraayo soo jiitamaysay ayay sheegaan tabashadaas inay jirto shacabka reer awdal ama kuwa galbeedku ay qabaani ma qabtaa mise ma qabtid wixii tabashee dadku u baahan yahay xaq bay leeyihiin inay sheegtaan dowladooda inay u sheegtaan sida ugu fiican noogu sheegtaan jidka ugu fiican noo maran xaq bay leeyihiin aaminsan tahay inay jirto mise ma aaminsanin midda taasi su-aal maahayn dadku waxay tabanayaan xaq bay u leeyihiin inay sheegtaan they have the right inay sheegtaan ay ka hadlaan way
madaxweyne wax dardaarana oo aad maanta oran lahayd dalka iyo dadka ayaan la hadlayaa kelmadaada ugu dambaysa waxaan oran lahaa reer Somaliland inaad isku duubnaataan laba qabyaaladaasi markaan joogin waan ka digi jiray imikana waan ka digayaa qabyaalada ha laga baxo ha loo noqdo xisbinimo ummadan xisbiyada maanta jirina xisbinimaha ku maamulanayeen ku raadsan kursiga hab qabiil taasi oo khatar ku noqon doonto mustaqbalka ummadan taasaan kula dardaarmay daawadayaalkaas waxaa madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Somaliland Daahir Riyaale Kaahin oo guriga uu ka degan yahay magaalada Boorama waraysi dhinacyo badan taabanayay nagu siiyay madaxweynaha mudane Daahir Riyaale Kaahin aad iyo aad baad u mahadsan tahay